Liibaan iyo ladnaan daawadayaal waa Shubaal Media halkan idinka soo gudbinaya kiliib ku saabsan amaba aynu kaga hadli doono fanaaniinta Soomaaliyeed oo ogaaday in heesahooda laga sameeyo lacaga aad u badan. Fanaaniintaasoo go'aansaday inay iyaguna jannaala samaystaan. Haddaba fanaaniintaasi oo aan mid iyo laba halkan aynan kusoo koobi karinin ayaan waxaan mid iyo laba halkan kaga taabanaynaa. Fanaanka daada yarta ee Guuleed Simba ayaa waxa uu 2020 heestii uu soo qaaday Janno Duniya waxa uu soo geliyay jannaal uu isagu leeyahay. Waxaad moodaa fanaaniinta daayarta ee Soomaalida inay ogaadeen amaba ay dareemeen in laga sameeyo heesahooda aadka ay Soomaalidu u dhegeysataan lacaga badan, waxaana ay go'aansadeen sida muuqatay in iyagu jannaale ay leeyihiin amaba ay jannaala samaystaan oo ay youtuber noqdaan ayna gashadaan heesahooda aadka dadku u jecel yihiin. مستحيل دقيقي دكسي روح ذا دير شيء هادوجا قلبي قدوجا ديري نعم كي قدير شا دقيقي مستحيل دقيقي daawadayaal Guuleed Simba sidaan idin sheegnay heestan oo hal toddobaad ku jirta 1 milyan daawada ayaa waxa uu gashaday jannaal uu isagu leeyahay oo ah Guuleed Simba. Haddaba waxaanu is oran karnaa waxa weeyaan dhalinyarada Soomaalida ahayd fanaaniinta ahaa maadaama ay awal istuudiyoyaal heesahooda ay soo gelin jireen jannaaladooda inay iyagii isu bedeleen dhanka kale oo ay heesahooda iyagu jannaala samaysteen, taasoo aan u malayn karnay inuu khilaaf soo dhexgalay fanaaniinta daayarta ah iyo istuudiyoyaashii iyaga oo heesahooda lacag badan aad looga sameeyo. Waxaa ka mid ah fanaaniinta isna jannaaladooda heesahooda soo geliya Qamar Suugaani oo isaguna ah fanaan daayar oo aad heesihiisa dadku u dhageystaan ayaa waxa uu heest 2020 hadda bishan aynu ku jirno uu soo qaaday weliba arooskiisii jannaal uu isagu leeyahay. Qamar Suugaani oo isaguna ah fanaaniinta aadka iyo aad ay u dhageystaan daayarta Soomaaliyeed heesihiisu waxaa daawadayaal sida idiin muuqata waad aragtaan janaalkan waa Qamar Suugaani oo isaguna soo geliyay heestiisii hadda uu ka qaaday arooskiisa. Waxaynu oran karnaa maahan kuwan kuwii ugu horreeyay mana noqon doonaan sidaan filayna kuwii ugu dambeeyay. Haddaba maxay noqonaysaa haddii fanaan walba uu samaysto jannaal oo uu gashado heestiisa, maxaa ay qaban doonaan talow istuudiyaashii, maxaase kalifay amaba keenay arrintan? waxaanu idinkaga soo gudbin doonaa barnaamijkeena barnaamijkaga sababaha keena arrintan iyo qaabka ay u timi fanaaniintu gashadaan heesahooda jannaaladooda.